السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أمد Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan subax wanaagsan aroorey suuban aan saakay waxa Ilaahay mahadiisa aan nimid garoonka caalamiga ee Aadan Cadde International Airport magaalada Muqdisho Soomaaliya aan maanta oo sabti ay tahay taariikhda 23 December ayaan halkan nimid annagoo sugootinayno una duceynayno aan caafimaadna insha Allah safar caafimaad oo guul leh u rajeynayno walaasheen Faiza Maxamed Cabdi oo runtii xaalad aad u adag ku sugnayd oo 16 sano kaliya jirta laakiin waxaan aaminsanahay marka la isgarab galo loona duceeyo la isku dadaalo inuu Ilaahay caafimaad soo siin doono insha Allah safarkeedan uu noqon doono safar caafimaad oo guul leh Faiza xaaladeeda يا أرميد عافمات وهذا اللي هو كوبي كرماه لكن إلهي وحاجبر يعني إلهي عافمات صوصيو كنا سوقولي حقوم هاد علنا قفل بوكاقي بقعدتي من إلا ما شريك وكسو جاري إلا أنت استال كجرتي ما هي إن أنت قاعد قف صومالي وضمير له لكن أنا ما كنا لسوق جارسي وحنقبك كرنا وكود دالني لكن إسكاشيا سمد إسكاشتي وحلا إلهي ودي كعب على مرنيا ونية دهان يشقهان يقفل بسوقبت أنا هدي أن هي مامور جول كبنات الدولة ده هوسه إلهي هو نوافجي وأنا أقول اعتبرت أن أنت إتهاي لكن وأسكت الشنة أنا ولا شنقرب استقبله أنقف كله وحوي الدين وقت كله إنسان كله من أود إنه وحيته هلا قرب استقبله ضل كمان تقدرنا استعلا متكون في عن لقيه أنا أنقرب استقبله وحن كعد سنة أمد Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inaad u soo duceysaan Faiza Maxamed Cabdi xaalad runtii qof 16 jira oo gabar yar ah xaaladda ay martay xaalad sahlan ma aha waxaan ka codsanaa u soo wada duceysaan garab istaagtaan waqti badan ma qaadanaysa haddii saas la isku garab istaago aabaheed iyo hooyadeed oo safar ku wehelin doono oo ay u baahan tahay waqtigan adag waxaan ayagana Ilaahay uga baray inuu Ilaahay qalbiga u hagaajiyo qalbiga u dajiyo kuna kalsoonaan inaan garab taaganahay ducaan la garab taaganahay kaalman la garab taaganahay in aadanimo la garab taaganahay Soomaalinimo la garab taaganahay muslimnimo oo waajib nagu ah la garab taaganahay waxaan mar kale dadka codsanayaa dadka jooga gaar ahaan dalka Turkiga magaalada Istanbul Soomaalida joogta inaad u istaagtaan gabadhaas sidaad wehel ugu noqon lahaydeen ummadda kale Soomaali meel kasta ay joogaan waxaan ka codsanayaa gabadhan xaaladeeda xaalad sahlan ma aha annagu wixii waajib waa qabanay waana garab istaagayna waana hubinayna insha Allah intuu Ilaahay caafimaad ka soo siin doono ayadoo faraxsan caafimaad qabtana Ilaahay waxaan ka baahan inuu nabad nagu soo celiyo laakiin waxaan ka codsanaa ummad Soomaali kasta ay joogtaan walaalayaal aan isgarab istaagno gaar ahaan gabadhan xaaladeeda xaalad hada lagu koobi kara ma aha aan u duceyno aan garab istaagno safar salaam u rajeynaa dhamaantood safar caafimaad oo guul leh abaheed iyo ay hooyadeedna insha Allah iyo walaalaheed iyo qaraabadeed dhan waxaan u rajeynayaa insha Allah niyad sami iyo qalbi wanaagsan Ilaahay qalbiga u dajiyo inta joogtana waalid iyo walaal iyo Allah ummad Soomaaliyeed ku kalsoonaad inaan isgarab istaagayno insha Allah gacan wanaagsan ay ku jirto waa mahadsantihiin gudoomiye Thabit iyo agaasimihiisa iyo dhammaan dadkii hawsha Faiza ka qayb qaatay dal iyo dibad aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa mahadan la soo koobi karin yaanu mahad celinayaa gabadha Faiza Maxamed Cabdi dadka ka qayb qaatay hawlaheeda gudoomiye Thabit gudoomiye Maxamed Ismaaciil iyo dhammaan maamulka gobolka Banaadir waxaan u rajeynayaa guul waarta ayaan u rajeynayaa waana uga mahad celinayaa arrintaa gudoomiyaasha dhammaan way mahadsan yihiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. صحافة iyo mas'uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir afhayeenka iyo gudoomiyaha degmada Kaxda iyo gudoomiyaha degmada Hodan iyo gobornatorihii iyo agaasimayaashiisa oo la socday iyo mas'uuliyiinta meesha joogta dhamaantiin aad iyo aad ayaan idin salaamaya. waxaa la ii igmaday inaan mahadcelinta ka qayb qaato. waxaan u mahadcelinayaa mar labaad anigana gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Taabid Cabdi Axmed oo ka jawaabay cabasho faa'iza iyo ehelkeedu ay u soo gudbiyeen oo muddo 2 bilood ku dhibanayd dalka gudihiisa caafimaadkeedana waxba looga qaban waayay. waxaan si weyn oo mug leh ugu mahadcelinaynaa gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo maamulkiisa oo cabashadaasi ka jawaabay. waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa madaxweynaha Jubbaland oo runtii soo qabtay ninkii dambiilaha ahaa ee fakaday ama la fakiyey oo ay sabab u noqotay arrintaasina inay si xanuun baabi'iya u noqoto faa'iza damiirkeeda iyo ehelkeeda ninkaasi in gacanta lagu soo dhigo. si weyn ayaan ugu mahadcelinaynaa madaxweynaha Jubbaland madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyo ku-xigeenadiisa iyo maamulka Jubbaland ayaguna aad iyo aad ay u mahadsan yihiin. waxaan sidoo kale u mahadcelinaynaa dadka Soomaaliyeed gabdhaha xildhibaanada ah oo faa'iza in la badbaadiyo ka shaqeeyay iyaga laftigooda iyo muxuu ahaa dadka xuquuqda bini'aadamka u dooda iyo saxaafadda. si weyn ayaan ugu mahadcelinaynaa haddaan nahay faa'iza ehelkeeda aad iyo aad ayaan idinku mahadcelinaynaa. shukran. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.